kuwani waa xikmado laga yaaba waxayna ka faa'iidid insha Allah. xikmadda koowaad waxay leedahay xishoodku wuxuu ka hor imaadaa wax kasta oo xun ayaa xishoodku ka hor istaagaya. xishoodku wuxuu ku leeyahay xumaantaan ha samayn, xumaanta qaabdaradeeda iyo foolxumaday leedahay ayaa xishoodku ku tusaya. qulubtu walaalayaal waa qufulan yihiin, laakiin maxaa furi karaa? waxaa furaya waxa weeye waa su'aalaha ayaa furaya. deeqsinimadu waxay ka dhalataa hamigaada oo sarreeya. qofka caaqilka ah ee wax garanaya waa qofka kuwaana qaata nolosha uu soo maray iyo tijaabooyinkii kala duwanaa ee uu soo maray. murugadu waxa weeye qulubta sunteeda. ha murugoon, murugo lama ammaanin. sidaa darteed qur-aanka dhexdiisa waxaad arkaysaa adoo lagu dhahayo ha murugoon, muruga dushooda ma ahaanin, meel murugo lagu ammaanay ma jirto. idan haddaad murugootid waxaad u soo jiiday qalbigaada cudur. sunta disha qalbigaada waa murugada. cilmikan ugu shar badan ma taqaanaa? waa midka aan ku anficin oo aada ku camal falin. rasuulkeenna wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam, allahuma innii as'aluka cilman naafica. cilmi waxtaraan ilaahu ku weydiisanaya. akhlaaq iyo dhaqan waxaa ugu shar badan ugu xun waa been iyo munaafaqnimo. beenta iyo laba wajiilanimada ayaa ugu liita akhlaaq iyo dhaqan. waa dhumay wallaahi qofka ilaahay waddadiisa wadda aan ahayn hanuun ka raadiya. qur-aankaas iyo diintaas suuban qofkii meel aan ahayn hanuun ka raadiya waa qof dhumay. cilmiga carabkaada ma taqaanaa? waa runta xaqiiqada ku dhisan. qofka kuu naseexeeya waa kuu wanaag sameeyey, laakiin muhiimaddu waxa weeye u nasteexee qofka, hana fadeexayn. qofka canaano laakiin ha dhaawicin. qofka garan waaya waxa uu yahay iyo bulshada meesha uga qoran yahay waa sanbiriraxanaya. qofka ka fikera waxa uu samaynayo waxay keeni karaan wuu badbaadayaa. qofka naftiisa xisaabiya waa liibaanay oo waa guulaystay. qof aan ammaano lahayn iimaan ma lahan. qofka hadalkiisu aad u bato, dhacdiciisa iyo khaladaadkiisa aad u bataa, daacada ilaahay iyo inaad ilaahay caabudid, halkaas ayaa waxaa kuugu dhex jira kaydad wanaagsan dhammaantood. akhlaaqda wanaagsani dhammaasho ma lahan. qaraabada aad gooysid waxaa kugu degaya aargoosi. ciqaab baa kugu habsanaysa haddaad qaraabadaada goysid. qof khalad ku dhacay ha ku farxin, adiguba ma ogid maalmaha waxay kuu kaydinayaan, adba maalin baad ku dhicin. horaa waxaa loo yidhi god haddaad walaalka u qodid ha dheerayn, inaad ku dhacdeed laga yaabaaya. naftaada oo ku dadaashid oo aad sifayso tarbiyaysid, dhammaystirka wanaagsanay halkaasu ku jira. waqtiyada isbadbedelaya, sanadaha isbadbedelaya, ku cibro qaadashaa noogu sugan. cadaaladda waxaa ku dhex jira wanaagga bini-aadamka iyo makhluuqa dhammaantiis. ilaah inaa xustid waa nolosha qalbigaada. iimaanka maxaa madax u ah oo ugu sarreeya? waa sabirka. jahliga yaa ugu sarreeya oo madax u ah? waa xadgudubka. alla ka cabsiga maxaa ugu sarreeya oo ugu madax ah? xumaanta naftaadu jeceshahay inaad khilaaftid weeye. siyaasad iyo maamulka ee ugu wanaagsan oo ugu sarreeya? dabacsanaan inaad ku maamushid ayaa ugu sarraysa shayga. gaalnimada xaggee ugu sarraysa oo ugu xun? khiyaana ugu xun oo ugu sarraysa. madaxa diinta waa xaggee? meesha ugu sarraysa diinta waa run dhab ah. dikriga ilaahay waa calaamadda ay leeyihiin dadka muttaqiinta ilaahay ka cabsada. jihaad waxaa ugu khayr badan naftaada inaad la jihaadid. adduunyada oo aad jeclaatid oo aad daba orodid oo wax kasta ka hormarisid, gaf kasta iyo khalad kasta meesha laga dhexlo wey. cunto waxaa ugu liita midda xaaraamta ah ee xalaal aan kugu soo gelin. hadal waxaa ugu xun beenta. calaamad iyo boor waxaa ugu xun isku dirka iyo namiimada waxaa loo yaqaan. qofka dooniya towbad, albaabka towbadda waa u furan yahay. ma taqaanaa insaanka balaayadiisu meeshay ku jirto oo masaa'ibta qofka u kasbaya waa carabkiisa. ku dadaal carabkaada inaad xifdidid oo dhowrtid. dadka ha u sheegan dhaawac aduu aad kasabtay. ha cabsan maadaama waddada hanuunkaada haysid. weligaa qofna addoon ha u noqon. ilaahay asagoo xor kaa dhigay. ilaahay tabaaraka wa tacaala hanaga dhiga dad aakhiradooda iyo adduunyadooda u shaqaysta oo ku noolaada dikriga ilaahay kuna dhinta insha allah. intaasi waa dhowr qodob oo waxtar noo leh insha allahu tacaala. inaa wax ka faa'iidayna waan filayaa. su-aasha keliya waxaa weeye xikmadda keliya ku cajab gelisay waa tee? hoos noogu qor. qaybtan waa qaybtii koowaad. qaybo kalea noo soo socda insha allah. xikmado kala duwan iyo hadallo nolosha kuu ifinaya insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.